Dugsiga Daaru Mustafa Primary and KG School oo kamida dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku yaala magaalada Hargeysa isla markaasina ka kooban qeyb maxada oo lagu barto culumta Islaamka iyo qeyb madrasada oo lagu barto Quraanka Kariimka iyo qeyb iskuul ah oo lagu barto manhajka maadiga ah ee Somaliland ayaa waxa uu xaflad ballaaran u qabtay sanad dugsiyeedka cusub ee 2020-2021 iyo ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaankii qaaday dugsiga Daaru Mustafa Primary and KG School xafladani oo lagu qabtay hotel Shraaqle ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday xisbiyada macaaridka ee UCID iyo wadani iyo xisbul xaakimka talada dalka ay kulmiyeen mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada ee Somaliland ugaasyo chief caaqilo saraakiil ka socday ciidanka qaranka culimo awdiin madax dhaqameed waalidiin iyo badiba ardayda wax ka barata dugsiga Daaru Mustafa Primary and KG School ugu horeyn waxa munaasabadani xafladda ka hadlay maamulaha dugsiga Daaru Mustafa Primary and KG School Cabdi Fataax Faysal Cabdilaahi isagoo ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwan ee dugsigu soo maray waxa hadaladiisii kamid ahaa waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee sharafta badan aad u soo xaduurteen madashan qiimaha badan aad u soo ajiibteen martiqaadkii aanu idiin fidinay baan aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaan ilaahay jasaakumullahu khayran jazaa intaa kadib waxaynu maanta u fadhinaa xafladda sanadka dugsiga 2019-2020 iskuulkan Daaru Mustafa waxa la furay sanad ka hor xaqiiqatan waa iskuul cuudina hasaate waxaanu gelnay dadaal fara badan iyo juhdi fara badan oo ay ka muuqato ardayda halkan fadhida marka dugsigan Daaru Mustafa wuxuu soo maray marxalado kala duwan kala caqabado ma waayo laakiin maanta waxa ku kalsoonan hubaa ardayda halkan fadhida inay tahay arday ka muuqato horumar ballaaran arday ka dhisan akhlaaq ahaan aqoon ahaan iyo maskax ahaanba dugsiga Daaru Mustafa waxa uu ka kooban yahay qaybta barbaarinta carruurta iyo qaybta primary ama hoose dhexe ayuu ka kooban yahay dugsigani waxa uu ku socdaa ama aanu ku dhignaa waa manhajka wasaaradda waxbarashada oo ku baxaya luqadda Ingiriisiga waxaanu kulay aanu raacnaa waa siyaasadda wasaaradda waxbarashada geesta kale waxa hadalka iska daba maray mas'uuliyiinta iyo marti sharafka kale ee lagu soo casuumay xafladda uu Daaru Mustafa u qabtay sanad dugsiyeedka cusub ee 2020-2021 waxay yiraahdeen waxaan leeyahay maadaama dad islaam aynu nahay inaynu awoodda saarno barashada diinta imika ardayga dee ardaygan soo ilaa imika ma waanahay ardayda sida diinta u kala wanaagsan yihiin ayay maadigana ugu kala wanaagsan yihiin ardayga diiniga ku wanaagsani maadigana isaga ku wanaagsan waxaan oran lahaa horta maanta waxaan halkan ula ciideynaa waa ardaydiina yaryar waxaanu idin kula ciidinaa wax kale oo yaalaana ma jirto Soomaalidu waxay tiraahdaa har waliba hooskii waxaanu ka hadlaynaa waa waxbarasho iyo ardaydaas ay halka ka sii wadaan asluuba hooyo waa tahay kaga badbaadayno in ilmaheedu waxay la galaan la baro oo hooyo ka taqaan hooyo ilmuhu wax loo yahay la baraya oo manhajkooda la yaqaano oo farqeeyo la wada garanayo wada laba ayaa carabiga wuxuu waxa lagu sheegaa diin carabidu maadada carabidu waa quraanka kariimka ku qoran yahay oo ma aha in la dhaliilo oo la yiraahdo ma hadii intaas oo timaado waxa leeyahay cilmi aqoon karti dadaal iyo mas'uuliyad ay qaadeen maamulka iskuulka Daaru Mustafa waa muddo taageerahay waxaan rabnaa maalin dawlad Soomaaliland ka shaqeysay dibadda laga iman doono iskuulka Daaru Mustafa
geesta kale iyaguna waxaa halkaasi gabaya ku soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dugsiga Daaru Mustafa Daaru Mustafa Daaru Dugsiga aqoonta waddanka tacliinta waddanka heertiina halkii gaabaya haweeneyda ka gaadhay ugu dambeyntii munaasabadani xafladani waxaa shahaada sharaf iyo sidoo kale hadiyada lagu guddoonsiiyay ardayda wax ka barata dugsiga Daaru Mustafa iyo sidoo kale macallimiinta iyo waalidiinta waa Naasir Cabdilqaadir Cabdiwahaab Naasir Talasame Badacas 24 TV magaalada Hargeysa.